waxaan u socdaa maanta inaan wax kaaga sheego qalabkan yar oo remote-ka wata oo loo yaqaano Apple TV. Sida magacaba kaaga muuqata, qalabkan waxaa soo saartay shirkadda Apple ee caanka ku ah iPhone-nada. Muxuu qabtaa Apple TV? Muxuu ku fiican yahay? Muxuu ku liitaa? Muxuuse uga duwan yahay qalabyada sidiisa? Iyo su'aalo kale oo badan ayaan muuqaalkan uga jawaabi doonaa. ereyga TV marka aad maqasho waxaa kugu soo dhacaya shaashada weyn oo wax laga daawado, sax? balse markan sidaa maaha. sheekadu way ka duwan tahay. Apple qalabkan yar ayay soo saartay, waxayna u bixisay Apple TV. waa mid ka mid a qalabyada loo yaqaano streaming deviceska. waxaa jira oo la tartama Apple TV kuwa kale oo badan sida Android TV, Google Chromecast, Roku Express, Amazon Fire Stick iyo kuwa kale. kulligood waxay ka siman yihiin inaad ku qasban tahay inaad internet ku xirato qalabkaas si aad shaashada weyn wax uga daawato. bal muxuu uga duwan yahay Apple TV kuwan kale aan hadda kuu soo sheegay iyo kuwa la midka ahba? naqshadaba aan ka bilaabay. Apple TV culays ahaan 417 gram ayuu la culays yahay. waxa uu u samaysan yahay 4 gees dhinacyada ka dooxan sidaad u jeedo. qaybta dambe waxa uu ku leeyahay 3 god oo kaliya. godka dabka laga siiyo, fiilada internetka haddii internetkaaga uu fiila ahaan kugu yimaado, ogoon wifi waa uu leeyahay, iyo godka saddexaad oo ah HDMI oo aad shaashada kula xiranayso Apple TV. sida kartoonkiisaba ku cad, tayada 4K ayuu leeyahay Apple TV. haddii ay shaashadaadu leedahay tayada muuqaalada ee 4K, dabcan muuqaalada aad daawanayso TV-ga aad ka daawanayso tayo wanaagsan ayaad ku daawanaysaa. Apple TV waxa uu leeyahay Apple Store u gaar ah oo barnaamijyada TV-ga aad ka soo degsan karto, sida iPhone-kaba uu leeyahay Apple Store kale u gaar ah. tusaale ahaan, waxaad soo degsan kartaa Netflix. haddii aad Netflix account ku leedahayna, waad ku xiranaysaa, waxaad Apple TV-ga ka daawan kartaa filimada iyo barnaamijyada ku jira Netflix-ka. sidoo kale, applicationo kala duwan iyo geemyo aad ku cayaarto ayaad soo degsan kartaa, laakiin sidaa uma xiiso badna. waxaa sidoo kale jira filimo iyo musalsalo aad mid u iibsan karto ama u kiraysan karto. dabcan, haddii aan si kale u iraahdo, waxaad daawashada Apple TV ku bixinaysaa lacago kala duwan. wax firiya aad ayay u yaryihiin. laakiin hal fikrad ayaan ku hayaa. App Store-ka Apple TV ayaad galaysaa, waxaad ka soo degsanaysaa YouTube. muuqaalo iyo filimo aad u badan oo free ah oo lacag la'aan ah ayaad ka dharkaysaa. ogow, Apple iyadana filimo iyo musalsalo ayay samaysaa. waxay u bixisay Apple TV Plus. sida Netflix oo kale ayaad telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga ka daawan kartaa. $5 ayaad ku kiraysanaysaa bil kasta Apple TV Plus. haddii aan remote-ka u imaado, dabcan aad ayuu khafiif u yahay marka loo fiiriyo kuwa kale. isaga oo dhanba 7 batan ayuu leeyahay. 6 batan oo halkan ku yaala iyo 1 batan oo halkan ku qarsoon. haddii aad iPhone leedahay, remote-kana uu kaa fog yahay, iPhone-kaaga ayaad remote ahaan u adeegsan kartaa. sidoo kale, laptop Apple haddii aad leedahay, Apple TV ayaad ku xiran kartaa wireless ahaan, waxaadna shaashada weyn saaran kartaa waxa laptopka kaaga muuqda. haddii aan qiimaha u imaado, waxa uu ku yimaadaa qalabkan yar ee Apple TV-ga 2 kayd, 32 GB iyo 64 GB. midna waa $180, kan kalena waa $200. dabcan, aniga ma jeclaysan Apple TV. kuwa kale xitaa ma jecli, sababtoo ah inta badanba wax ma daawado. laakiin adiga haddii aan ku weydiiyo, ma iibsan lahayd? fadlan qaybta hoose nagula wadaag fikradaada Apple TV ku saabsanna, waan kaa sugaynaa sidoo kale. anigoo kaaga mahadcelinaya waqtiga qiimiga badan eed ku bixisay daawashada muuqaalkan. fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada. sidoo kalena ha ilaawin inaad nagu soo biirto haddii aadan ka mid ahayn asxaabta IM252. waa intaasoo aad ka heshaa muuqaalo waxtar ku leh sida kan oo kale.
inta laga gaarayo muuqaalka xigeenba idankii nabadgelyo